marka fadhiya iyo ubax iyo baay shugri iyo qofkii ka jawaabayo horta fadhi waa maadsantahay imaashaha imaatay anaa maanta kusoo raadsada oo ku dhahay kaalan ka hadalna topican because adiga waxa ay tahay qofka oo arrimaha dhan aad ugu warqabo waxa tahay qof gabdhaha dumarka dhan garab taagan waxa tahay qof u dagaalamo xaqa bini'aadamada waa ark adoo niman xataa ka soo horjeeda xumaanta lagu soo biyo qof walba waxa jeceshahay xaqiisa in la ilaaliyo marka waxaan rabay maanta waxaan arkay sharcigan isagoo la soo bixiyay oo basically waana haystaa halkaan igu jira soo qoraala sharciga basically haddaa sii fiirisid waa oga dad badan qalad bay u qaateen because xarafyada ku jira meesha laakiin essentially sharciga wuxuu sheegayaa inuu ka soo horjeedo kufsiga dumarka waa la ogyahay run ahaantii haddaan run isku sheegayno annaga daacad isku ahaanayno wiilal yaryar oo la kufsaday oo intee kaloo looga tagaya wiil dabadeele looga tagaya waxaas dhan waa la soo sheegay dadkii waxay ku hayaan diinta baan isticmaalaynaa maxaan sharci ku falaynaa waan ognahay diinteena iyadoo jirto waxaan waa soo socdeen marka maxay dadka ugu waasheen diintaan isticmaalaynaa sharci uma bahanin oo naga ka ilaalinayo dumarka in lagu maxaa lahaa lagu xadgudbo jirkooda iyo wiilasha yarka jirkooda lagu xadgudbo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهبا بايو آدي آد بعد ما هتسنتهاي for inviting me and also والله هاي أبح يو شكري it's nice to see you guys ما شاء الله and you know dhibaatada masiibada inagu dhacday waxay tahay waxaynu noqonay ummad dadkii hagayay ay shookaanta u hayay ay noqdeen dad not only inay yihiin dad wax magarata ah I'm sorry I'm not going to sugarcoat this dad wax magarata laakiinse dad yaqaana sida wax loo dumiyo iyo sida wax loo duleeyo laakiin aan aqoonin sida wax loo dhiso iyo sida xal loo helo haddana aan ogeyn waa the blind leading the blind waa dadkii indhaha lahaa qofkii indhaha lahaa ee dadka indhaha la hagayay ma garatay caqli marmarka qaarkood markaan u fiirsado waxaan leeyahay subxaan allah dadkani maxay yihiin listen let me read you ma akhriday xeerka ma akhriday horta first and foremost diinta islaamku miyay cusub tahay diinta islaamku almost 1500 sanadood bay jirtaa almost 1000 sanadood oo kamid ah haddaanay ka badnayn Soomaalidu muslim bay ahaayeen intii kufsigu hadeerto socday every day inuu sii bato mooyaane kama soo reyneen mana soo yaraaneen markii gabdhihii laga daalay kufsigoodii wax laga qaban waayay markii hore kufsi buu ahaa kufsigii markii wax laga qaban waayay dil baa loogu daray hablihii dilkii markii wax laga qaban waayay kufsigii uu daahiyada soo goostay sida daadka waxa ku xigay dadana in laga badaalo dumarkiiba oo la nacaba because filmada xunxun iyo so many other things so they maartay adduunka hadarto qabsaday deetana waxa la bilaabay wiilashii in loo gudbo intaasoo dhan hayaydaasaan haynay war hoy wiilasha ku xigi doona we already know wiila la kufsaday laakiin la dooni maayo in laga hadlo so waxay kaga dhigtay ummadii Soomaaliyeed hala qariya yaan laga hadlin wixii aan laga hadlin micnaheedu Soomaali waxay ula mid yihiin waxaan jirin waa sida aynu ognahay waan ka qaaday gacal suqurxay gabadh baa halka iga saantay sida aynu ognahay waxa weeye denial markaad ama isdhaga tirama isindhatir shaqadii iyo hawshii halkeedu bay ka socdaan ma garatay taasi nacam waxa laaliyo wax ay joojinaysaa ama ay dib u dhigaysaa ma jirto inay uga sii darto mooyaane intii aan lahayn warinamadii baa ku xiga warinamadii imika way soo badanayaan maalin walba tiradii ay sii badanaysay maanta waxa soo baxday inayba nimankii caadi u soo baxeen oo ayba isla degeenba qaar baaba soo baxay yidhi waanu isqabnaa ma garatay intaana Soomaaliya waxay lahayd ma jiraan yeeli mayno kufsiga yaan laga hadlin ma jiro kufsi xal mastuur ha lagu dhameeyo muxuu ahaa xeer ha lagu dhameeyo kan ha lagu dhameeyo kidhiish ha lagu dhameeyo waa maanta haddaba maxay ahayd mahmaadii caanka ahayd jirtay the chicken is coming home to roost maanta xaqiiqadii baa soo baxday waxay qariyaanba oo kabasaanba oo qariyaanba waxa weeyaan maanta xaqiiqadii baa soo baxday waxa ayaan dhow imanaysa weliba hadeer already bilaabantay dadka ay leeyihiin waxba qoomaladooda iyo kan iyo kidhiish waxa bilaabmaysa hadeer already bilaabantay inay xaqdoon noqdaanba
already xaqdoon because waad ogtahay beesha caalamka ee ay inta aflagaadeynayaan inta caayayaan ay iska garan waayeen ilaahay iyagu bay ilaahay ka sokow iyagay gacanta ugu jiraan ya ninka biilkaaga bixiya maatadaada biila wax ma beeratid wax ma abuuratid wax ma dhisatid wax ma hagaajisatid wax ma garatid ya yay gacanta ugu jiraan ilaahay iyo soo kol beesha caalamkay gacanta ugu jiraan maanta waxa la marayaa markaa heer la yiraahdo maba taaban kartaanba you can bar dhaweyd niman lagu qabtay Somaliland ya niman Somaliland lagu qabtay oo la xiray wala iska sii daay because wax lagu xukumaa la garan waay sharci lagu xukumaa ma bijira bade ya waa run diinta waa ku jirtaa wixii laga yeeli lahaa laakiin sida wadankii diinta kuma dhaqmo wadankii shariicada kuma dhaqmo Soomaalidu degtaa shariicay ku dhaqmaan let me tell you something meel wadamada islaamka oo dhan waxa jira xeerar dhifa oo shariicada lala beegsado laakiin the vast majority of 53 nations I think inay yihiin wax shariica lagaga dhaqmaa ma jirto ma garatay include illa iyo Saudi Arabia ayaa qaanuun gooniya samaystay oo ka baxsan shariicada islaamka Saudi Arabia waa meeshii ay muslimiintu Soomaha ay ka dab qaadanayeen listen imika waxa la isku haystaa waxa weeye maxaa loogu qoray bal xeerka akhri xeerka af Soomaaliga bal waxa la isku haystaa dadkii doontaa aniguna I'm going to read you anna waxaan ku akhriyaa xeerka waxaan ku akhriyaa Saudi Arabia okay so kan Soomaaliga akhriya waxa ku horta wuxuu dhahay qof kasta wuxuu galayaa fal dambiyeed kufsi ah haddii uu waxa waay si uu la kac sorry I'm like not the best it's okay yeah like أنا أخرية سوق I'm gonna read it أنا أخرية أنا labadaba أخرية سوق أنا labadaba أخرية سوق halka Facebook ayaan ka galayaa سوق okay waa kan 4 May ma ku soo diraa ku soo text garay right now ma it's okay because telefonka kama akhriyo waxaan ka akhriyaa okay waxaan ka akhriyaa okay waa kan waxa weeye qaybta labaad qodobka la isku haystaa waa qodobka waa number 4 weeye qodobka afraad weeye kufsi ya bahalkan xeerkan gabigiisa waxa la yiraahdaa xeerka jinsiga nacam xeerka qofka weeye qofkan nacam lagu badbaadinayo ya waa specifically xeer loogu talagalay in lagaga hortago hadday tahay kufsi hadday tahay muxuu ahaa dhibaataynta qofka de hadday tahay in qofka jirdil lagu sameeyo hadday tahay qofka in fiidiyoya laga duubo hadday tahay qofka in la afduubo hadday tahay qofka in la iibiyo hadday tahay qofka in khasab maaragtay qof kale loogu guuriyo waa waxaas oo dhan ma garatay marka waa marka sinadii way ka duwan tahay sinadii laba qof baa isla baxsaday oo meel isla galay weeye yaa isla dhuuntay shariicadu waxay qabtay diinta islaamku waynu ognahay 4 witness baa loo baahan yahay oo irbadii iyo duntii oo isku jira arkayay nacam ilaahay baa subxaanahu wa ta'aala adkeeyay sida lagu baartay 4 qof oo run sheegayaal ah oo ku dhaarta in irbadii iyo duntii alaabtii isku jirtay ya maaha way qolba iskula jireen maaha way qaawanaayeen maaha way isdul saarnaayeen irbadii iyo duntii oo isku jira 4 qof oo ku dhaarta way la helaa ma garatay sidaas oo ay tahay hadana waynu ognahay de inuu dambi ka yahay wadamada islaamka oo dhan sinadu waa dambi waynu ognahay waa dambi kabaa'ir weyn weeye laakiin maxay muslimiin badan ay hadiya jeer dadku maxay sameeyaan ma markhaati baa loo yeelaa ma markhaati bay raadsadaan xaggay labada qof ee doonaya inay wax isla sameeyaan ma markhaati bay samaystaan soo ma dhuuntaan way dhuumanayaan ma garatay markhaatiyaal they'll make sure inaanay markhaati helin marka dad baa la iskaga dilaa labadooda wada socdaa la arkay labadooda qol isla sii gelayaa la arkay ma garatay bad kufsigu waa wax cad kufsiga iyo iibinta iyo dilka iyo boobku de waa wax cad markhaati jirkaagii baa markhaatiya marka lagu qasabo marka waa kan marka waxa la yiri qodobka afraad kufsi waa qodobka dhibaatadu ka taagan tahay qof kasta wuxuu gelayaa fal dambiyeed kufsi ah haddii uu si ula kac ah geliyo haba yaraatee wax kasta ee la geliyo xataa objects ya ee la geliyo daloolka xubinta taranka which is dumarka waa fajaynaha dumarka alaabtooda futada way qaawiyeen halka ma garatay futada waxay ahayd daloolka saxarada inay yidhaahdaan baan anigu ka laakiin way qaawiyeen futada ya ama xubinta taranka ee qof kale
object ama qofintu xubintiisi taranka soo qaado uu qof kala geliyo khasab ku geliyo ma garatay una adeegsado wax kasta ama xubin ka mid ah jidhka iyo b kaasi waa e qofka kale uusan ogolayn waxgelinta yaa eeg bal hadda waxaad ila eegtaa waxa dagaalku ka taagan yahay nimankii Soomaaliyeed ka qaylinayaan wuxuu yahay aanu ogolaynaa horta first of all maxaaftada loo yidhi yaa bal eeg exactly that was a triggering word mulaca la yidhi mulaca waxa la yidhi isagana waa u qurgooyo mulaca geedka bahalka yare mulaca la yidhaahdo carruurta baacsan jirtay dhulkeennii isagana waa u qurgooyo yaa oo waa nacam waa la dilaya naftiisu la carraya carruurtana waa ka dheeldheel waa ciyaar niman baa kibray oo iyagu og inaan la kufsanaynin oo madax isku sheegaya oo ilaalo haysta oo carruurtoodii hadday doonto dibadda u joogto oo carruurtoodii hadday doonto ilaalo u haysataa yaa ayaa waxay ku qoslayaan futada maxaa loo yidhi waan ka xishoonnaa waxaase what are you talking about inanka yaree la fuulay xaafadaha degan maaragtay dadka masaakiintii degan yihiin ee barakacayaasha inta loo soo dhacay la kufsaday askar qaar iyo kuwa kaleba fayl ka galeen ama inanta yaree miskiinadda ee la kala dilaaciyey yaa ee miskiinadda ah ama dabaha looga tago ama horaha looga tage ma xishoodka hadhay muxuu yahay miyaa laga xishooday midda kale maxaa dhaha waxay triggering wuxuu u noqday in laga hadlaba maxaa la dhahaa kaleeto daba la iska fuulaayo haddiisan dhicin lahayn laguma ridi lahayn legislationkaba laguma ridi lahayn haddiisan loo baahnayn xeerkaba laguma soo ridi lahayn haddiisan dhici lahayn wiilal yaryar waxaa ka qiinlaysiin niman Soomaaliya gay noqday wiilashaaneeto ama gabdhaha oo Soomaalida oo gayga noqdeen qaarkood expuelso waa childhoodkoodii maxaa lahaa kaleeto lagu soo xadgudba jirkooda waa la soo faraxmay waa ciyaal badan oo lasoo sexually assaulted lagu soo suubiyey weye markaasaa lama rabo in la dhiilgareeyo dhibkii soo dhacay waxa keenaye wixii imaaday see waa lala dagaala waxa jiraa lala dagaalayo you have to be proactive inaad ku noqotid oo waxaan maanta jira maxaa keenay haddii kale dhibkan uu soconaa weligiis haddaadan root of the problem aadan tegin marka dadkii aniga waxaan dareemayaa fadxiya sheekh nimankan la dhaho shaydaamadan nimankan diinta isticmaalo waxay arkeen dadkii inay emotional yihiin waxay arkeen dadkii maxaa la dhahaa kaleeto markay diintii lagu soo hadal qaadaba wax walba inay suubinayaan waxay u barteen diinta inay u isticmaalaan dhinaca sidii dadka emotionkooda gacanta uga hayaan diin run uma isticmaalaan dadkii maxaa laga dhaadhiciyey waxay rabaan inay naga dhigaan okay inay homosexuality inay caadi tahay dadkii waxaasaa laga dhaadhiciyey qof walbo Soomaaliya waxaan rabaa inuu wax iska aaminin waxaa naqashid ha aaminin wax walba examen gare nooga sheekee sababta nimankan iyo diinta u isticmaalaan ay dadka emotionskooda ugu ciyaaraan ee ugu advantage ugu qaataan maya diintu ila wax cusub maaha weligeed way jirtay waa kuwa la diintaaba noo sheegtay wax kaste maxay u isticmaali waayeen taasaan u baahnay Soomaalidu inay isweydiiso waxaad isweydiisaan dumarka Soomaaliyeed oo waliba idinkaan idinla hadlayaa nimanka Soomaali iyo nimanka Soomaaliyeed caqliga la waxaan weydiinaya diintu ila inaguma cusbaa excuse me maxaa loogu dhaqmi waayey maxaa loogu baanish garayn waayey nimanka sidaa wuxuu gelaya ee carruurta kufsanaya ee hooyooyinka kufsanaya ee ayayooyinka kufsanaya ee haddeer wiilashii kufsanaya maxaa loogu baanish garayn waayey diintii maxay ku taraysaa ya waa the same thing ay yidhaahdaan dumarku markay xaqooda ka hadlaan waxay koranayaan diintaa ku siisay xaqaagii aniguma diin baan haystaa anigu diin dacwo uma haysto anigu ilaahay dacwo uma haysto anigu ninka Soomaaliyeed ee awoodii gacanta ku haysta ayaan dacwo u haystaa isagaa iga hortaagan xaqaygii isagaa carruurta xaqoodii ka hortaagan isagaa miskiinka xaqiisii ka hortaagan isagaa carruurta yaree la kufsanayo ee la ciilayo ee la dilayo ee baaba'day isagaa ka hortaagan why diintu ila meel kale kama imane why not diintan ma loo isticmaalo gabadha Soomaaliyeed ee diidaysa ya in diinta lagu baanish gareeyo nimanka sidaa wuxuu gelayaa waate ya midda kale waxaan ku akhriyaa eeg qof waa taqaanaa wadamadan aynu joogno qof baa waxa lagu soo dacweynayaa kufsi for example wuu kufsaday
oo baa lagu soo dacweynaya dacwadii baa lagu soo ogaya maxkamad baa la soo taagaya 12 qof oo juwariye baa u baxaysa iyo xaakinkii iyo 2 lawyer baa meeshii soo istaagaya qofkii la iskama xidhaye waa la baaraya soo maaha case-kii baa la dhegaysanaya investigation baa dhacaya waxa la kala ogaanaya inuu consent ahaa iyo inuu kufsi ahaa consent-ka iyo kufsigu isuma eka inta badan isuma eka of course yeah inkastoo inagu waxaan joognaa waddan de no means no iyadoo dhexda la marayo hadday gabadh ama nin yidhaahdo no then you have to stop qofka kale waa inuu joojiyaa laakiin sideedaba dee kufsi iyo consent isuma eka waayo consentka waxa weeyaan dhaawac kuguma yaallo waxba kuguma yaalaan no force injury nothing laakiin kufsigii waa qofkii qofna waa isdifaacaya qofna xagxagashaa ku dhacaysa midba waa la isdilayaa waa la isku baaba'aya deersawe waa la kala garanaya kii la xoogayay waa la garanaya iyo waxan inuu xoog ahaa marka haddiise ay caddaato labadan qof inay consensual inay isku ogolaayeen inay wax isla sameeyaan marka it's a different story inaga maxaa dhacaya marka inaga maxaa wadamada muslimiinta waxa dhacaya waxa marka trigger noqonaya the zinada casekeedii ila isla seexdo free maaha sida wadamadan oo kale ma garatay and marka wadamada muslimka waxay triggergaraynaysaa isla markiiba zina inay labadan qof wada sameeyeen deetana punishmentkii zinadaa soo gelaya taas already waa la ogyahay how to deal with it waynu naqaanaa ma garatay waayo zinadu waxay usoo gelaysaa iyagii baa qirtay inay iswaxeeyeen oo already markhaati uma baahna iyagii baa isku caddeeyey ma garatay marka waxaan ku akhriyaa sacuudi arabiya baan ku akhriyayaa siduu u qoran yahay waddan muslima okay rape in Saudi Arabia bal hadda eeg rape in Saudi Arabia anu waxaan isleeyahay Saudi Arabia kasoo copy gareeyaan waa website koodan kasoo goostay rape in Saudi Arabia is regulated okay waa kan may rape okay